السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. walaalkay aayada aan akhriyay ilaahay markuu ka hadlayay ambiyada waxa uu yiri kamaanan yeelin ambiyada jasad aan wax cunin oo aan adduunyadan ku nooleen kamaan yeelin oo aan arsaaqadan aan cunin wama kaanu khalidin mana waarayaan. qisada maanta aan ku wada waxa weeyaan shalayna waan idin soo qoray inta aan noolaa cimrigayga aan noolaa qisadii iigu yaabka badnayd ee aan la kulmo marna aan tamaniyo in aan booskaas anigu aan ku jiri lahaa walacalla allaha marka aad maqasho in adiguna aad tamanin lahayd. qisadu waxa weeyaan gabadhii quruxda badnayd ee Juliana la oran jiray, gabadhii asbuucan soo islaamtay, gabadhii aan commentigeeda idinla wadaagay weeyaan ilaa iyo hadda ayaga go'ilaadahay. gabadha ayada ah fridge-ka ay caawa ku jirtaa, maanta fridge-kay ku jirtaa, isniinta ama talaada ayaana la aasi doonaa. walaalaha degan Amsterdam, masjid taqwa west Amsterdam degan haday ka qayb gali karayaan meedkeedii tacsiidaha aada. Juliana waatuma Allahu akbar. inta ana Juliana galin aan ku xasuusiyo xadiiskii nabiga kaleey sallallahu alayhi laga wariyay Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, xadiiskii Imam al-Bukhari uu soo saaray fi sahihihi. nabigu waa asaga dhaaranaya dhahaya fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, waxaan ku dhaaranayaa ilaahayga gar lagu caabudaa aysan jirin ghayrkiis. midkiin ina axadakum la yacmalu bicamali ahli الnaar, midkiin wuxuu samaynayaa camalka naarta lagu galo xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac. naartu markay wax yar u soo jirto oo dhimashadiisu ay soo dhawaato ayaa fayasbiqu calayhi alkitaab, kitaabkii baa ka soo hormaraya ilaa waxaa u qornaa markuu caloosha hooyadii ku jira inuu saciid ahaa. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، مركاسا قفكو مركبا ووريكسنيا، مركاسو خير كلازميا، مركاسو قفكي إلهي سبحانه وتعالى حكو أفسنيا أسقو عمل ونكسن حيا. أسأل الله العظيم إلهي وحن ويدي سنيا أنيقا إذنك بإنه إلهي حسن الخاتمة نقو أرزاقه. الخليفة الخامسة عمر بن عبد العزيز مركا لمني أسقو أيضا أخنا يودنتي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أنتم أوصل نقطة جوليانا مالنتي عاشورا أين سوميني مالنتي كهر ريسي أيال إيقصو حري وقبت عدان 40 sano ku dhawaatay, 7 maalmood shaqaysa, akoonadeedu ay buuxaan, shirkadda diyaaradahana u shaqaysa. islaamkay jeclaatay, qalbigeeda ayuu ilaahay hidaayad la doonay. waa yawmul caashura ayay ila soo xariirtay maalintii ka horeysay. gabadh baa igu soo xidhay, waxaa la yiri gabadhan Sheekh Axmedo gabadhan shahaado u qabo. ilaahay wuxuu igu ilhaamiyay oo markaas anigana igu waafajiyay in aan dhaho masaajid ma idin dhow yahay? ha waa noo dhow yahay. masaajidkaagee maxaa yeelay haddaan anigu hadda shahaado u qabto ma helayso tashriicin fara badan. masaajidka gee marka inta la islaamiyo muslimiintu hareeraha ka maraan, hab iyo hag la siiyo, hadiyad la siiyo, imaamku shahaado u qabto, iyadana waxaa ku dhacaya moraalka u dhismaya, walaaluhuna way ogaanayaan way xiriirinayaan. gabadhii baa qaaday masjid taqwa Amsterdam baa la geeyay, halkii bay gabadhii ku islaantay. Juliana markii halkii lagu islaamiyay waxay tiri weysada hal i baro. weysadii baa la baray. markii salaada la baraya waxa kamid ahaa markay rukuucayso dhabarka bikeeri baa laga saaray si rukuucdeeda loo xasiliyo. markaas waxay dhahaysay ma iga hubtaan dhabarkaygu ma taagan yahay? markay weysaysanaysan kadalika weysada way dhameystir jirtay. insaan cajiib ayuu ahaa. bal waxa iga soo gaaray inay aragtay gabar muslimada bidixda shaah ku cabaysa oo tiri maxaa yeelay islaamnimadu ma ogola, islaamnimadu soo ligta lagu cabo ma aha. ha arintaasi marka waxa ay keentay in ilaah subxaanahu wa ta'ala gabadhaasi uu waafajiyo in ay islaamnimada qaadato oo waliba si dhab ay u qaadato. Juliana markay islaantay yawmul caashura ayaa soo gashay. yawmul caashura ayay soontay ayadoo islaamnimada hilow u qabta ayay soontay.
maalinta iyadoo sooman ayaa gabadha muslimaada ayaa yidhi afur baan kuu samaynaynaa ee na soo booqo. Juliana markay xoogaha joogtay galabkii afurka markuu soo dhawaaday gaarigeeda istaartay inay gabdhihii booqato. dhaxda markay sii maraysay Juliana shil ay gashay, halkii bay ku geeriyootay. hal maalin bay islaam ahayd, halkii maalina way soonayd, yoomul caashuraana way ahayd. weligeed salaad hore maynas u tukan, weligeed quraan maysan akhrisan. gabadhaasi kam imisu ilaahay subxaanahu watacaala la doonay khaatimo wanaagsan. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها صلى الله عليه وسلم أن يكون أفر بقول صلى كهر نوشيغي قبل مركالكي أي كل متي أي كجريوتي إسلام من ذي أك oo hadduu wadaadkan yar islaamin lahaa yaa ogaan lahaa. laakiin ilaahay waxa uu khayrka ku dhawaafajiyey in masaajidkii laga ogaaday, in meeshii la tegay, in imaamkii islaami iyo markhaatiyadii ay dhahaan gabadhan annaga markhaati ka way soo islaantay oo gabadhii hadda ay masaajidka fridjka ugu jirto. haddaad ilaah subxaanahu watacaala wax weydiisanaysaan fas'alu llaha alxusna alkhaatima, ilaahay weydiista kulle adduunyada waad ka tagaysaane. noloshaada 2 maalin baa ku soo mari doonta oo kuugu murug badnaan doonta. noloshaada 2 maalin oo mahadhooyinka adduunyada ka mid a ama cimrigaada ka mid a ama xayatadaada ka mid a ayaa ku soo mari doonta. maalinta koowaad waa maalinta nafta lagaa qaadi doono, maalin kuula mid a oo ku soo mari doonta marna ma jirto. labada maalin waa maalin nafta lagaa qaadi doono. waa asaga nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii imaamu tirmidi uu kuriyay sunankiisa min xadiisi abi hurayrata radia allahu canhu: أكثروا من ذكر هذه اللذات. بدية معانقويها إنها كشيكيسا إسحاسوسية معانقويها وموتك ينكو حسوسين يا ولاشي، معانقويها يا موتك ينكو حسوسين يا ولالكي. مالين أي كاقد درنان دورت مجرت مالين تهليلا هذا اللفرديو عيرك آد إيغيسو روق هذا إسن عدنا مغلينين كليا آد قالن قالنا سكرات كنا أوكو هايو إن للموت لسكرات بالنبي عليه الصلاة والسلام. mawdku sakaraat buu leeyahay. maalintaa maalin ay kaaga daran tahay ma jirto, waa maalinta koobaad. maalinta labaadna waxa weeyaan maalinta qabriga lagaa soo bixiyo ood ilaahay soo hor istaagto oo aadan ogeyn ma jannaad geli doontaa ma naar baad geli doontaa, naxariisa aysan oolin. maalintaa nin walba camalkiisa uu sugayo. maalintaana maalin ay kaaga naxdin badan tahay oo ay kaaga daran tahay ma laha. يوم يقوم الناس لرب العالمين. maalintaa maalin ay kaaga darantay malaha. labadaa maalin adigoo ilaahay ka rajaynaya, labadaa maalin adigoo ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaya inuu ku badbaadiyo, jaaniskeeda iyo midhaha inaad gorato iminka iyo eega ayaad haysaa. ilaahay xusna alkhaatima ha weydiiso. ilaahay subxaanahu watacaala bari adigoo oo jecel, asagoo oo raalli ku inaad adduunyada ka tagto. laba arrimood baan kuu sheegayaa. asbaabaadka xusnul khaatima keena maxaa ka mid ah? kow waxaa ka mid ah inuu ilaahay kugu arsaaqo salaamat alcaqiida wa xusna aliimaan. nin caqiidadiisu ay wanaagsan tahay in aad noqoto. kam ayaa jira imisa nin. ibnu kathiir xaafid ibn xajar waxa uu ka sheekaynaya kitaabkiisa in nin ka mid ahaa dadka ma aragtay saxaabada caaya, dadka saxaabada caaya in uu si xun u geeriyooday. freedom speech saxaybaad u gafaysaa, shiicadan la heshiinay, waxaas waa in aad noqotaa qof salaamat alcaqiida ah, in aadan cidna ku xadgudbin. ilaahay wuxuu kaban aad la timaado salaamat alcaqiida wa sixat aliimaan. waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha xusnul khaatima lagu helo in ilaahay subxaanahu watacaala kugu arsaaqo in aad la timaado faraa'idta iyo ilaahay wuxuu kugu farad yeelay. waxyaalaha uu kaa reebayna aad ka fogaato, wixii kaa dhaca ilah baa kaa dib dhaaf subxaanahu watacaala. laakiin inta awoodaada aad dadaasho. waxaan kusoo gabagabaynayaa qisadan iyadoona kale. masjid almadiinat almunawara, masaajidka nebiga waxaa jiri jiray ninka asaga ummi buu ahaa. qur'aanka sida loo akhriya muusan aqoonin, sida loo maaragtay cilmi badan muusan lahayn, laakiin waxaa caado u ahaan jirtay baa ninka asaga. waa masjid nabawi bay ka dhacday qisadan. markuu masaajidka soo galo wuxuu arkayaa nin qur'aan akhrinaya. markaasaa intuu kitaab soo wuxuu raadinayaa qof keligii fadhiya, qof keligii fadhiyuu raadinayaa. markaasaa kitaab buu soo qaadanaya, wuu ula tegayaa, walaalkay kitaabka igu dul akhri إلا القرآن كما يقارنه مالين كسوى القدر أخرياء مساجد كنبي قصوا قال عليه السلام نكا ونين رير يمن هذا ويان نين ما أرتي سأسعلون بدنا موسى أهين قرآن كموسى كو أهين بارع موسى كو أهين حريف موسى كو أهين ماهر موسى كو أهين لكن مركز سوء أركانين مساجد إسكت أحفر لي كتاب كولا إيمانية ولكن كلام الله يقدر الأخر بأورنجري مال مها كمدا أيام نين بقيمت وحكوا لي كلام الله يقدر الأخر
waa lagu dul akhriyey asoo lagu akhrinayaa ninkii qaariga ahaa kitaabka akhrinayay ayaa waxa uu soo gaaray aayadaha sujuudda allahu akbar allahu akbar إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا مركود آياتها سجودها آيات كل سجود نكي سو قارئها نكي قارئها بسجودي مركو سجودي با نكي عامق أهانا وكذب سجودي مركو كذب سجودي نكي قرآنك أخني قرآنك يقاني بسجودي كسو كعي لكن نكي أمي أها سجودك مسو كعين هل كيف إله نفتك يا قاضي حسن الخاتمة إن إلهي أكوه أفسده هذا هو وحو جعلها كل حجرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحسن الخاتمة إله بمود السنة وحان كبر يا وراء مصر دام دقان إيه دعادة مسجد التقوى إن أي تقان قبل أسنميت كذا أي كقيب كلام نونتي عبرة إمامك سو إسلامي الله هذا وإنت سو لا مسين لا يهي أنا إله هذا وإيجا حري لا هذا يعني عجيب إلهي وحان ودي سنينا إن جنة الفردوس كو أرزاقه جوليانا إذن كان وحان إذن كو عصانيا إن دعاد نقطان لعل الله قف الله هذا شيء إنه إلهي قلبك إيمان ينور وكرده كدبنا أسده كسو إسلامه حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها كلا جارسية حمانتك ونحجر لعل الله إن أيقنا قصدنا أي سامي إن شاء الله تعالى كل يوم قد بيه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى